assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa qaybtii saddexaad ee barnaamijkii maxay naga sheegeen oo aan ku soo qaato qoraa xilli hore Soomaalida wax ka qoray. maanta waxaan ku soo qaadanaynaa Ibnu Battuta oo ahaa nin ka soo jeeda Morocco oo caalamka meelo badan oo ka mida booqday oo wax ka qoray. meelihii uu booqday ayaa waxaa ka mid ahayd magaalada Muqdisho. wixii uu ku soo arkay ayuu buuggiisa ku diiwaangeliyey. buuggaas oo lagu magacaabo تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. sidatan ayuu ku tilmaamay xaaladii uu ku soo arkay magaalada. markii aan muddo ku safraynay badda waxaan soo gaarnay magaalada Muqdisho oo ah magaalo aad u weyn, dadkeeduna ay leeyihiin geel fara badan oo ay maalin walba boqolaal ka mid qalaan. waxa ay kaloo leeyihiin ari fara badan. dadkeedu waa ganacsato waaweyn. magaaladan ayaa waxaa lagu sameeyaa dharka loogu magacdaray meesha tan, dharkaas oo loo iibgeeyo Masar iyo meelo kale. caadada dadka magaaladan ayaa waxa ay tahay marka ay dooni timaado ayaa waxaa yimaada doomo yaryar oo ay mid walba la socdaan kooxo dhalinyaro ah. mid kasta oo dhalinyarada ka mid ah waxa uu sitaa saxan ay cunno ku jirto. waxa ay u bandhigaan ganacsatada saaran doonta ah. markaas ayaa waxa uu dhahayaa, ninkan aniga ayuu marti ii yahay. markaa nin walba oo ganacsato ah oo saaran doonta haddii uusan cid ka aqoon magaalada, waxa uu raacayaa oo uu ku degayaa guriga dadkaas marti qaaday, iyagoo alaabta uu sidana ka gadanaya waxna ka iibinaya. haddaba marka ay dhallinyaradii soo koreen doonteenna ayaa qayb ka mid ah ii timi. markaas ayaa saaxiibadii la socday ku dhaheen, ninkani ganacsada maaha ee waa sheekh fiqiga yaqaan. markaas ayaa mid ka mid ah wuxuu yidhi, ninkan qaadiga ama garsooraha magaalada ayaa marti sooraya. waxaa dhallinyaradan ka mid ahaa nin garanayay garsooraha magaalada. markaas ayuu fariintii gaarsiiyey. garsoorihii ayaa markaas yimi xeebta, waxa uuna ii soo diray ardadii la socotay midkood. markaan soo degay aniga iyo asxaabtii uu helisay ayaan salaamnay qaadigii. markaas ayuu wuxuu igu yidhi, inakeen aan shiikha soo salaanne. waxaan ku idhi, waa kuma sheekhu? markaas ayuu igu jawaabay, suldaanka. caadadooda ayaa ah in ninka suldaanka ah ay ugu yeeraan sheekh. markaas ayaan waxaan ku idhi, markaan saa u soo dego miyaan suldaanka aadaynaa? waxa uu igu jawaabay, caadadu waxa ay tahay haddii uu yimaado nin sheekh ama shariif ah ama madax ah inuusan saldhigan ilaa uu suldaanka is arkaan. markaas ayaanu raacay suldaanka sidii ay iga dalbadeen. haddaba suldaanka ka talinayay Muqdisho oo sidii aan soo sheegnay ay dadka halkan degan ay ugu yeeraan sheekh, magaciisa waxaa la dhahayay Abubakar Sheekh Cumar. asalkiisu waa Baraabira. waxa uu ku hadlayaa af Muqdisho, af carabigana waa uu garanayaa. waxa uu canshuur ka qaataa dooniyaha yimaada. markii ay dooni timaado waxaa la weydiiyaa meesha ay ka timi, cidda iska leh, yaa naakhuudo ka ah iyo ganacsatada la socota. suldaankii ayaa waxa uu amray in la idejiyo daartii ardada oo ahayd meel loogu talagalay in lagu marti sooro ardada. qaadigii ayaa halkaasii kaxeeyey. qaadigan oo asalkiisu masaari yahay ayaa waxaa la oranayay Ibnu Burhaan. markii aan daarta nimi waxa ay ku dhoweyd guriga suldaanka. waa ay goglanayd oo nidaamsanayd. cuntada ayaa waxaa naloo ka keenay guriga suldaanka, waxaana noo yimi mid ka mid ah wasiiradiisii oo waxa uu yidhi, suldaanka ayaa idin soo salaamaya. markaas ayaa cuntadii la dhigay oo waxaan bilownay inaan cunno. waxa ay cuntadu ahayd bariis subag lagu kariyey oo ay ku rideen xeero weyn oo ay dusha kaga darayeen iidaan uu la socday hilib kala gedisan. moos caano lagu kariyey ayaa saxan halakana ku jiray, madibad kalena caano garoora. meel kale waxaa yaallay laymuun, sanjabiil, cinab iyo fawaakih kala gedisan. marka ay bariiska cunaan ayay ka dabageynayeen fawaakihdan iyo dhandhanaankaas. halka nin oo reer Muqdisho ah waxa uu cuni karaa waxa ay koox annaga naga mida cunto, taasoo keentay inay noqdaan dad aad u lafa waaweyn oo xoog iyo baruuri ka muuqato. markii aan cuntada dhammaysanay waxaa naga tegay garsoorihii. 3 maalmood ayaan joognay iyadoo cuntada 3 jeer maalin walba naloo keenayay. sidaas ayay caadadu tahay inay wax u cunaan.
goortii ay ahayd maalintii afraad oo ah maalin jimco ah ayaa waxaa noo yimi garsoorihii magaalada oo ay arday la socdaan iyo mid ka mid ah wasiiradii suldaanka. waxayna ii keeneen dhar. waxaa ka mid ahaa maro ay dhexda isaga xiraan oo beddelka surweelka ay gashtaan iyo shaati iyo cimaamad. waxaannu nimi jaamaca. markaas ayaan halkaas ku tukannay. markii ay salaadu dhammaatay ayaa suldaankii is aragnay anigoo la socda garsoorihii magaalada. suldaanka iyo garsooraha ayaa luqadoodii iskula hadlay. wax yar kadib ayuu suldaanku igu yidhi, soo dhowow, imaanshahaagu sharaf ayuu noo yahay. markaas kadib ayuu wuxuu aaday barxaddii masaajidka oo qabriga aabbihiis halkaasi ahaa. markaas ayuu qur'aan akhris iyo duco bilaabay. waxaa noo yimi amiiradii iyo wasiiradii iyo madaxdii ciidanka oo na salaamay. intaa kadib suldaankii ayaa albaabka masaajidka ka baxay. intuu kabihiisa gashtay ayuu u dhaqaaqay dhanka gurigiisa. dadkii ayaa raacay. madaxiisa ayaa waxaa hareynaya oo la siday qubad ka samaysan xariir, dahabna ku sharaxnaa. ciidamada iyo madaxdooda ayaa suldaanka horay iyo gadaal ka socday, waxaana la socday garsooraha, culimo iyo madaxdii kale. markii gurigiisa la tegay ayaa roogag la dhigay oo culimada iyo madaxdu meel gaara fadhiisanayeen. ilaa casarka laga gaarayana halkaas ayaa lagu jiray. markii casarka la tukado ayaa waxaa imaanaya ciidamada oo safaf galaya. markaas ayaa durbaanka la tumaya. iyadoo goorta ay durbaantumiddu bilaabato dadku dhaqdhaqaaqa joojinayaan oo nuuxsan mayaan. marka ay dhammaato ayay dadku isa salaamayaan oo kala dareerayaan. arrintaas ayaa u ah caado ay sameeyaan maalin kasta oo jimco ah. maalinta sabtida ah ayay dadku yimaadaan guriga suldaanka iyagoo fadhiisanaya barxad guriga dibaddiisa oo loo diyaarshay, iyadoo garsooraha iyo shuyuukhda iyo madaxduna ku fadhiisanayaan kuraas loox ah. suldaanku waxa uu gelayaa fadhigiisii. waxaa la fadhiisanaya garsooraha iyo dadka maqaamka leh. dadka badankood ayaa intay salaamaan baxaya oo aadaya dhanka daaradda. markaas ayaa waxaa la keenayaa cuntadii, iyadoo suldaanku iyo madaxda la fadhida loogu hor adeegayo. markaa kadibna cuntada loo geynayo dadka barxadda joogay. haddii dadka magaaladan isku qabtaan arrimo sharci ah, waxaa kala xukumaya garsooraha. haddii wax kale la isku maandhaafo, waxaa kala bixinaya dadka taladu ka go'do oo ah wasiirada iyo amiirada. markii loo baahdo talada suldaanka, waraaq ayaa loo diraa markaas oo uu ka soo jawaabo. warbixintaas ayaa waxay ahayd qoraalkii uu Ibnu Batuuta ka qoray safarkiisii uu ku tegay Muqdisho. markaas kadib ayuu wuxuu safarkiisii u sii watay dhanka Kilwa iyo Mombasa. intaas ayay noogu egtahay qaybtii saddexaad ee barnaamijkii Maxay Naga Sheegeen. haddii aad ka heshay barnaamijka, like saar, kanaalka subscribe samey. haddii kalena dislike saar. tan iyo intaan qaybta afraad ku kulmayno, nabadgelyo, wassalaamu calaykum. dadka Soomaalidu badankood waa xoolo dhaqato reer baadiye ah oo ku dheggan xeerkoodaas qadiimka ahaa ee qabyaaladda ku salaysan. waxay ku nool yihiin dhul badankiis dooxooyin yahay oo lama degaan u dhow, laakiin ay ka helaan daaq xoolahooda ku filan. xoolahaas oo ah hantida keliya ee ay leeyihiin. Soomaalidu waa dad qurux badan, raganimo leh oo aad u caqli badan, laakiin saas oo ay tahay waa dad aad u xasaasi ah oo si fudud lagu xiisa gelin karo. iyagoo ahna dad sida loo hadlo yaqaana, aadna u xiiseeya siyaasadda, inkastoo aysan dhinaca siyaasadda aysan weli qaangaarin. awoowayaashood ayaa waxa ay ka soo tallaabeen gacanka cadan, iyadoo Soomaalidu si tartiiba ugu faafay geeska Afrika. Soomaalidu waa dad aan daalin oo mar walba socod ku jira. sida dadka kale ee reer baadiyaha, ma xushmeeyaan xuduudaha dawladuhu samaysteen. hadba meeshii ay naq ka helaan ayay u hayaamaan. Soomaalidu 5 dawladood ayaa kala qaybsatay. qaybta uu Talyaanigu xukumo oo kor u dhaafayaan dadku 7 milyan. qaybta Britain oo ay degan yihiin dad lagu qiyaasay 650,000. qaybta Faransiisku xukumo oo qiyaastii ah 30,000. qaybta Itoobiya haysato oo 450,000 lagu qiyaasay, iyo ugu dambeyn Soomaalida NFD oo ah 60,000. Soomaalidu iyagoo saa u kala qaybsan ayaa qabiilada dhexdooda shaki kala qabaan oo ay dhexdooda kala qaybsan yihiin. iyadoo ay saa tahay, Soomaalidu waa hal qowmiyad, waxay ku hadlaan hal luqad, waxayna haystaan hal diin. qalbiga waxay ka wada aaminsan yihiin inay yihiin hal dad oo waxyaabo badan ka dhaxeeyaan.
halkaas ayaan ku joojinaynaa qaybtii koowaad ee warbixintii Bernard uu ka diyaarshay siyaasadda Soomaalida guud